waxay ahaayeen dad ka gaduuday maamul xumo, musuqmaasuq iyo cadaalad darro. waxay dalbanayeen xorriyad iyo isbeddel dowladeed. asalaamu calaykum, soo dhowaada saaxiibayaal, kuna soo dhowaada Bayaan Media. muuqaalkeena maanta waxaynu uga hadli doonaa kacdoonkii Guga Carabta. kacdoon bedelay gebi ahaanba habkii iyo hanaankii ay ku socdeen dalal badan oo Carbeed, kuna qasbay madax badan oo 10 sano xukumaysay dalalkaas inay xukunka si qasab ah uga degaan, halka wadamo kalena ay ka dhaxleen burbur iyo dagaalo sokeeye oo soo noqnoqday sanadihii 2010 ilaa 2012. dunida Carabta waxaa gilgilay kacdoon shacab waa aan taariikhda horey loogu arag. waxay ahaayeen dad ka gaduuday maamul xumo, musuqmaasuq iyo cadaalad darro. waxay dalbanayeen xorriyad iyo isbeddel dowladeed. kacdoonkan taariikhiga ah waxaa loo yaqiinay Gugii Carabta. bishii Diseembar 2010 Tunisia waxaa ka dhacay dhacdo bedeshay gebi ahaanba mustaqbalka dalal badan oo Carbeed, kuna qasabtay madax badan inay xilka isaga degaan, kuwaas oo 10 sano ku fadhiyay kuraasta madaxtinimada. nin lagu magacaabo Maxamed oo Misir ku dul ganacsan jiray ama mawarata ahaa, waa hadba sidaa u taqaane, ayaa isku gubay suuqa bartankiisa kadib markii ciidamo boolis ah ay si xun u jir dileen kana qaateen miiskii yaraa oo ku dul ganacsan jiray. falkaas naxdinta leh wuxuu xudun u noqday kacdoon ballaaran oo sababay in madaxweynihii Tunisia Zine Abdine bin Ali xukunka laga tuuro. kacdoonkii ka bilaabmay Tunisia wuxuu si degdeg ah ugu faafay dalal kale oo Carbeed. dadku way dhiiranayeen, waxa ayna dalbanayeen isbeddel. dalalkaas waxay ahaayeen Liibiya, Syria, Yemen iyo Bahrain. bishii Febraayo 2011 kacdoonka Masar waxa uu sababay in madaxweyne Xusni Mubaarak xilka laga tuuro kadib 30 sano oo madaxtinimo ah. Liibiya kacdoonku wuxuu isku bedelay dagaalo, ugu dambeyntiina Muammar Gaddafi waa la afgambiyey oo la dilay bishii Oktoobar 2011. halka Yemenna kacdoonku sababay in madaxweyne Ali Abdallah Saalax xilka laga tuuro sanadii 2012. Bahrain kacdoonka waxaa la xakameeyey, laakiin wali dadku way sii cabanayeen. saameynta kacdoonka dalal badan waxaa ka dhacay isbeddel siyaasadeed, halka qaar kalena ay u horseeday fowdo iyo dagaalo sokeeye oo aan dhammaad lahayn. dalalka qaarkood sida Tunisia oo ah halkii uu kacdoonku ka soo bilaabmay waxay heleen dowlad ku dhisan rabitaanka shacabka, halka kuwa kalena sida Liibiya iyo Syria ay noqdeen goobo dagaal. kacdoonkii Carabta waxa uu muujiyey rabitaanka shacabka iyo cadaaladda iyo xornimada, laakiin taariikhdu waxa ay su'aal dul dhigtay ma xorriyad ayaa lahay mase fowdo iyo dagaal. haddaba saaxiibayaal, guud ahaanba muuqaalkeeni maanta halkaas ayaynu ku sameynaa. waa inoo iyo muuqaalka dambe, laakiin haddii aad nagu cusub tahay oo aad nala soo gaartay ilaa iyo dhammaadka, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. asalaamu calaykum waraxmatullah.